markale isku soo noqod wanaagsan su'aasheena maanta aktarkana waa aktar caan ka ah saaxadda filimada Hindiya haddii aan qishar ku siiyo waa ninkii laadirka ka ahaa filimkii Baahubali nala wadaag haddii aad garanaysid magaciisa rasmiga ah wuxuu ku bilaabanayaa filimkeena maanta nin taajir ah oo isagoo dharraana cararaya waxaana lagu magacaabaa ninkaani Nelson Yu wuxuuna ku cararayaa wadada isagoo markaasi qaawan halka ay ceersanayaan asxaab badan oo xanaaqsan laakiin si ugu baxsado ninkii Nelson wax uu galiyaa gaari isagoo markaas halkaas ka baxsaday asxaabtii tuugada hadda ceersanaysa Nelson ayaa ka careysan qaabkii uu Nelson ugu baxsaday mana aysan awoodin inay qabtaan ama ay aqoonsadaan muddo kadib waxaan aragnaa Nelson oo xabsiga ku jira sababtoo ah qofriyada ayuu gaari ku dhuftay kadibna xabsiga ayaa lagu soo xiray isagoo markaas lagu xukumay 18 bilood maadaama uu qof bilaadan ah soo dilay Nelson hadda wuxuu garwaaqsaday inuu lumiyo xurnimadiisa hadda waxay bilaabeen asxaabtii soo xirtay inay garaacaan oo ay ku sameeyaan wax aad u foolxun Nelson wuxuu noloshiisa cusub ka rajaynayaa inay u noqon doonto way aragnimo xun isaga taas oo ku qaadan doona xabsiga gudihiisa inkastoo xabsiga uu ahaa mid saaid u weyn taliyihii goobtaani wuxuu wada yeerayaa dhammaan maxaabiistii balse Nelson wax saaxiib ah halkaani kuma lahayn isaga wuxuuna Nelson galaya xasuustiisii hore waana la dharbaaxaya waxaana ku adkay Nelson inuu saaxiib samaysto kadibna wuxuu la saaxiibay nin ka mid ah maxaabiista kaasoo lagu magacaabo Roach ninkii Nelson iyo saaxiibkiisa cusba waxa ku jeesay maxaabiistii maalin ayaa nin lagu magacaabo Hakan ayaa waxa garaacaysa maxaabiistii iyagoo wali sidii u garaacay Hakan ayaa waxa qeylinaya ninkii Hakan ahaa waxaana goobtaas yimid taliye xabsiga ayaa sheegay in eedeysanaha la soo qaban doono maxaa yeelay eedeysanaha looma hayo wax marqaati ah hadda Nelson iyo saaxiibkiisa waa ay yaabin yihiin maxaabiistii waxay sii wadaan inay garaacaan Hakan iyagoo markaas doonaya inay kufsadaan ninkii Hakan ahaa musiibahan igu dhacdo Nelson iyo saaxiibkiisa waxa ka soo haray argagax ninkii taliye xabsiga ahaa maahan mid cadaalad faraya sida muuqataba markaana waxaan aragnaa Nelson xaaskiisa inta uusan soo gelin xabsiga ka hor waxaana lagu magacaabay xaaskiisa May waxaan aragnaa isagoo waqti la qaadanaya xaaskiisa balse waqti xaadirkaani Nelson waxa soo wacday xaaskiisa balse qaabkii uu Nelson xabsiga ku soo galay ayaa ahayd waxay saaxiibo ahaayeen May waxayna joogeen xalfad yar oo ay ku casuumeen asxaabtooda waxayna wada qaadanayaan waqti aad u qurux badan iyagoo markaas wax kasta haysta kadibna waxay soo qaateen gaarigoodii cusba kadibna waxay bilaabeen arrimihii dabiiciga ah iyadoo markaas uu gaarigii socdo kadibna waxay gaariga mariyeen haweeney miskiinheed iyagoo markaas halkaas ku dilay halkii ay ka caawin lahaayeen jawigooda ay iska sii wateen waxaana isla markiiba goobtaas yimid booliiska ugu dambeyntii waxay booliiska gacanta ku soo dhigeen Nelson iyo saaxiibtiisa ma jeclay inaan filimka ka dhaxgalo balse haddii aad weli iska daawanayso oo aadan noo laagarey si uu muuqaalkeen u gaaro saaxiibo qurux badan sida adiga oo kale haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir isagoo sakhraansan ayaa hooyadiisa halkaani loogu yeeray waxayna hooyadiisa aad ugu walwalsan tahay wiilkeeda inkastoo reerkiisa ay ahaayeen kuwa qani ah 2 maalmood kadib Nelson ayaa qirtay dambigiisii eedii lagu soo ogay aaweeda waxaa lagu xukumay 18 bilood oo xabsi ah kasoo gudub waqti xaadirkaani maxaabiistii waxay cunayaan raashin inkastoo Nelson uu hore taajir u ahaa man uusan cuni karin cuntadaani balse gaajada ayaa u geynaysa kadibna waa ay seexdeen waxayna ka soo kaceen subaxdii inkastoo maxaabiista aysan taabanaynin akhyaarta sigaarka cabta waxayna gumaystaan oo kaliya kuwa aanan sigaar ka cabin maalintii xigtay waa hal meel isugu keenay dharkii inkastoo Nelson uusan ku faraxsanayn dhaqaani waxa uuna bilaabay inuu tuuro dharkii isagoo markaas dhulka ku dhacay waxaana soo qabtay nin lagu magacaabo Uncle Dad waxuuna Nelson siinayaa sigaar si aysan u dareemin waardiyaasha waxuuna u sheegay Uncle Dad intuu sigaarkaani cabayo inuu ammaan ku heli doono xabsigaani Nelson wuxuu mahadceliyay ninkii isagoo markaas ku yiri abaalkan haddii gashay mar waan ku gudi doonaa maalinta ka sii dambeysay Nelson wuxuu la qabsanayay sigaarkii waxa uuna u yimid saaxiibkiisa wuxuuna saaxiibkiisa Roach u sheegay haddii aad sigaarkaani isticmaasho waxaad ka badbaadi doontaa maxaabiista iyo waardiyaasha Nelson iyo saaxiibkiisa waa ay soo baxeen waxayna arkeen goobta uu kontaroolka ka soo galo xabsiga haddii aad ka baxdo albaabka kontaroolka waxaa laga yaabaa inaad badbaado iyadoo markaas ay ka hoos duugan tahay in laga yaabo inaad halkaas ku dhimato hadda waxaan aragnaa nin ka mid ah maxaabiista kaasoo lagu magacaabo Brother Zeto waxaana maxbuuskaani qaabilsanaa tahriibiinta dadka jooga xabsigaani isagoo markaas geynaya xabsi kale balse ninkii ayaa ku yiri waa kuma mid ka haysta sigaarka ama caba ninkii Roja wuxuu ka jawaabay waa Nelson waa la qabtay isagoo markaas la geeyay xabsi kale markaana Nelson wuxuu waraaqad u qorayaa hooyadiisa isagoo markaas ku dhahaya waad ku maasantaa hooyo inta aad ii dadaashay wuxuuna ka codsanayaa hooyadiisa inay wakiilada xabsiga ay lacag siiso si uu halkaan isaga ugu baxsado Nelson ayaa sidoo kale waraaqad u diriyay saaxiibtiisa si ugu muujiyo jacaylka uu isaga u qabo wuxuuna u sheegay inuu jacaylkeeda imtixaan ku yahay maxaa yeelay xabsigaani uu soo galay sababteeda iyada ayaa lahayd
muddo kadib ninkii Brother Zeto ahaa ayaa ogaaday inuu Ridge khiyaanay ninkii Nilsson ahaa maxaa yeelay Ridge waxa uu ahaa mid caba sigaarka balse Nilsson ayaa eeday saaxiibkiisa dusha saaranaya inkastoo uu Ridge horey u khiyaamay saaxiibkiisa waxuuna u sheegay ninkii Brother Zeto ahaa sigaarka ay cabin inuu gaarayo 50 baakadood waana inay midaas ka digtoonaadaan hadda kadib Nilsson waxa uu yimid saaxiibkiisa isagoo markaas bilaabay inuu dharbaaxtiyeeyo maxaa yeelay waxa uu isku dayay Ridge inuu khiyaamo saaxiibkiisa laakiin Ridge ayaa raaligelinaya saaxiibkiisa khiyaanadii uu isaga khiyaamay Nilsson markaan hooyadiis ay u timid iyadoo markaas soo booqatay waxayna ku wargelisay inay ka shaqeynayso sidii ay ku heli lahayd qareen wanaagsan kaasoo isaga u dooda si uu xabsigaani ugu soo baxo Nilsson waxa uu aaminsan yahay racfaanka ay ka qaadan doonaan xabsigaani inuu noqon doono mid fashilma maadaama uu Nilsson horey u qortay dambigaani markaana waxa uu ka soo tagayaa Nilsson hooyadiisa kadibna waxa uu yeertay hooyadiisa iyadoo markaas ku tiri niyada khayr u sheeg wax walba way hagaagayaan waa kuwaana Nilsson iyo saaxiibkiisa oo iska ciyaaraya taliya xabsiga ayaa markaan xabsigaani keenay nin lagu magacaabay Jack Nilsson ayaa aqoonsaday Jack inuu ahaa ninkii isaga ceesanayay markii uu qaawanaa waxayna markaas joogeen xalfad waxaan halkaas joogtay gabar aad u qurux badan iyagoo meeshaas ku baashaalay waxay cabeen cabitaan badan kadibna waxay aadeen qolkooda intaas kadib ninkii Jack waxa saaxiibtiisa ka dhacay ninkii Nilsson ahaa kadibna ninkii Nilsson isagoo la jeefay saaxiibtiisa ayaa waxa uu yimid ninkii Jack ahaa kadibna waxay bilaabeen inay dagaalamaan markaana waa kuwana maxaabiista iyagoo markaas ka doodaya qaabkii lagu joojin lahaa dambiilayaashan ayaga ku dhex jira maxaa yeelay waxaa jira dambiilayaal badan oo garaaca dadka ku cusub xabsiga balse arrintaas iyaga ayaa isku khilaafay maxaa yeelay iyaga ayaa kala jaad ah oo aan isku mid ahayn waa kuwana Nilsson iyo saaxiibkiisa waxayna soo wada fariisteen halkaan iyagoo markaas sheekaysanaya ninkii Jack markaana wax uu bilaabay inuu garaaco mid ka mid ah maxaabiistii intaas kadib ninkii Nilsson ayaa waxa loo xil saarayaa inuu maamulo dhammaan maxaabiistii halkaan ku sugnaa waa kana Nilsson isagoo markaas loo gudinaya shaatigiisa maadaama uu halkaan ka noqday taliye waxuuna bilaabay inuu cuno raashinka midka ugu macaan isagoo markaas loo daliigaya waxuuna markaan horjoog u noqday dhammaan maxaabiistii halkaan ku sugnaa isagoo markaas ku amray inay alaabta dhaqaan kadibna waa kuwan ayagoo markaas sheekaysanaya waa kala anagii Jack isagoo markaas mid u garaacaya maxaabiistii markaana waa kuwan dhammaan maxaabiistii waxaan horjoog u ah ninkii Jack waxayna markaan doonayaan inay weeraraan ninkii Nilsson ahaa waa kuwan Nilsson iyo asxaabtiisa iyagoo markaan halkaan ku ciyaaraya kubadda kolayga intii ay kubaddii kolayga ciyaariyeen waxaa meeshii soo galay ninkii Jack isagoo markaas balooni ku dhuftay ninkii Nilsson balse Nilsson aad ayuu u xanuunstay isagoo markaas halkaas isiga tagay waa kana Jack isagoo markaas xoog ku haysta dhammaan maxaabiistii maxaa yeelay waxa uu isbadiyaa awood sare markaana waxaan la aragnaa ninkii Nilsson iyo asxaabtiisa waxayna bilaabeen inay iska cabaan sigaar iyagoo markaas wada sheekaysanaya intaas kadib maalintii xigtay ninkii Jack waxa uu yimid wakiilkiisa isagoo markaas u sheegay inuu halkaan ugu saari doono sida ugu dhaqsiyaha badan balse markaana waa kuwana maxaabiista iyagoo markaas qadaynaya waxaan halkaan jooga ninkii Nilsson isagoo markaas cuntada u qeybanaya maxaabiistii intaas kadib waxa soo istaagay ninkii Jack isagoo markaas cuntadiisa soo qaaday waxa uu iska bedelayaa cuntadii waxayna sii wadaan maxaabiistii inay halkaas ku qadeeyaan ninkii Jack waxa uu bilaabay inuu ku xanaaqo mid ka mid ah maxaabiistii waxaan halkaas yimid taliyii ciidanka isagoo markaas canaatay ninkii Jack markaana waxa keeg loo keenay ninkii Nilsson maadaama ay dhalashadiisa ahayd waxuuna farxad la qaadanaya dhammaan maxaabiistii halkaas joogay iyagoo markaas uga hambalyeynaya dhalashadiisa hambalyen kadib waa uu soo baxay ninkii Nilsson isagoo markaas u yimid saaxiibkiisii oo murugsan maalintii xigtay waxa goobtii yimid taliyii ciidanka isagoo markaas u dacwo qaadayay maxaabiistii balse markaana ninkii Ridge ayaa taliyii ku dacweeyay ninkii Jack isagoo markaas ku yiri ninkan waa gaangistar waxa uu nabaabiyaa maxaabiista isla markiiba waxa ku soo booday ninkii Jack waxaana ka qabtay askartii markaana waa kuwana maxaabiistii iyagoo markaas qof walba uu joogo qolkiisa waxayna markaana dareemayaan farxad maadaama laga xiray ninkii Jack markaana waa kuwana maxaabiistii iyagoo markaan halkaan ku shariya inkastoo xabsiga laga soo daayay ninkii Jack intaas kadib waxay bilaabeen maxaabiistii inay sheekaystaan oo waxa hormuud ah ninkii Jack waxuuna ninkii Nilsson af u geliyay maro intaas kadib waa kala ninkii Nilsson waxuuna ku soo kacay meedkii Ridge oo kala laada meel sare aad ayuu u cabsaday isagoo markaas soo cararay waxuuna soo xasuustay goodintii uu goodinayay ninkii Jack markaana Jack waa uu soo baxay isagoo markaas ninkii Nilsson ku dacweeyay qaybta sare maxaa yeelay waxa uu dilay saaxiibkiisa isagoo aad u xanaaqsan ayuu taliyii ku yiri maxaa dhacay waxaa dhacday dhimasho oo kaliya ninkaasna asaga naftirkiisa ayaa isdaldalay markaana ninkii Nilsson ayaa dhahaya maxaa dhacay aniga ayaa u jeeday sidoo isku daldalaya saaxiibkayga maya saaxiibkayga waa la dilay
isla markiiba waxaa xanaaqaya taliya isagoo markaasi ku qaylinaya waxaana askartii ku amraya in halkaana laga dhaqaajiyo ninkii Nilsson ahaa. Markaana waa kala Nilsson waxaana soo weeraray qaar ka mid ah maxaabiista ayagoo markaasi bilaabay inay garaacaan. intaas kadib ninkii Nilsson waxaa la kulmay ninkii Angaladaha. ninkii Angalada waxa uu sheegay wax walba sida ay yihiin isagoo markaas u sheegay inuu naftiisa u turto maxaa yeelay waxa halkaana ku dhintay saaxiibkiisa. balse ninkii Nilsson ma mid waxaas yeelaya maxaa yeelay wax uu doonaya inuu u argudo saaxiibkiisa. intaas kadib ninkii Nilsson waxa uu soo qaatay midi isagoo markaas doonaya inuu dilo ninkii Jack ahaa. waxaana hal mar ku goobtay asxaabtii Jack iyagoo markaas doonaya inay dilaan ninkii Nilsson ahaa. waxaana goobtaasi yimid taliyihii ciidanka isagoo markaas bilaabay inuu garaaco maxaabiistii. intaas kadib taliyihii mid walba oo ka mid ah maxaabiistii waxa uu ku soo xiray qol isagoo markaas halkaas ku ciqaabay. waa kana markaana Nilsson waxa uu ku aalimiitaanaya halkaani isagoo markaas iska akhrisanaya buugiisa. intaas kadib Nilsson waxa uu suurto gashay in laga soo daayo xabsigii waxa uuna joogaa meesha lagu baakimo basaska. intaas kadib waxa uu soo raacay bas isagoo markaas habsiiyay hooyadiisa. isla markiiba ninkii Nilsson waxa uu ku soo laabtay xabsiga isagoo markaas u soo laabtay ninkii saaxiibkiisa ay Angalad ahaa isagoo markaas u gudayay abaalkiisii uu hore ugu galay. markaana waa kana Nilsson isagoo markaas saaran gaarigiisa waxa uu wadada ku arkay xaaskiisa waxayna isgoosteen xaaskiisa waxaana halkaas ugu dhashay cunug yar. waxaana halkaas ku dhamaaday filimkii. waxaana lagu magacaabaa filimkani Imprison Survival Guide for Rich and Prodigal isagoo markaas soo baxay sanadii 2015. maanta muuqaalkeena intaas ayuu ku egyahay. intaan muuqaalkani mid kiisa badan kulmi doono sidaas iyo nabaadiino.